الله أكبر الله أكبر وقادية 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 نحلها دور لفكا عادوا ما سنتهين انت كدب دمان حبناها قلنا يرى OYSU مرت شرفتا مسؤولين من حج حدودنا حريته وقادية أو وريو دكتور عبد الرحمن شيخ مهدي مادي دمان أورورا يرى ديغانك ururka dhalinyarada oo kala duwan qaybaha kala duwan dhalinyarada rag iyo dumarba anoo ku hadlay magaca dhalinyarada ogaadaya OYSU aad baan idin salaamaya salaan kadib maanta waa maalintii la aasaasay dhalinyarada OYSU waxaan rabaa in si fiican oo wanaagsan kana duwan sidii hore in xalfadda noogu dhacdo runtii waxaan rabaa xubnaha kala duwan ka soo qayb galay inay ka faa'iideystaan waxaan rabaa insha Allah taala wax badan hore inuu ku arki jirin oo dhanka fagii suugaanta mas'uuliyiin kala duwan oo dhalinyarada deegaanka iyo qaybaha kala duwan bayna ka faa'iideysan doontaan inta kadib shirkana uu inoo furan yahay kuna soo dhawaada gacmo furan iyo shirkii dhalinyarada OYSU oo si fiican wanaagsan nagu socon doona insha Allah taala marka waxaan leenahay sanadkuun insha Allah taala xariijina si ka fiican oo ka wanaagsan oo wax badan oo hadda naga dhiman aan dhineen insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan noo suurta gasho shirkana uu inoo furan yahay aad oo maasantiin waxaan la soo dhawaada dhamaantiin aad oo maasantiin ka soo qaybgalkiina san dhamaantiin qof walba waxaan ku salaamayaa mansabka uu ku fadhiyo halka dhamaantiin waxaan idin leeyahay Soomaali Maxamed aad baa u salaamantiin magacaygu waa Maxamuud Cumar Cali ururkan Taakulo aad maqasheen idinkugu soo celcelinayo horta ma ahna idin fahansiiyay urur siyaasi ah waa urur samafal ah oo deegaanka ka shaqeeyo dhalinyaro badan iskugu jiro cid walbana leh bishii Ramadaan ee ugu dambeysay waxay qabteen aftir wadareedkii ugu horeeyay ee deegaanka ka qabsoomay waxay ahaayeen ururkii wadada qariyandhooda horumarta ay aftirka ku qabtay inta badan dawladda iyo shacabka uga wada daysadeen tilaabadaas oo dhalisay wax badan oo wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed sharaf iyo sumcad u ah habeenkii aan barnaamijka aftirka qabanay si la mid ah sababo ayaa lagu qaban rabay laakiin shacabkii waa la kala ceeriyay oo muusan qabsoomin halka waxa ka soo baxay tusaale fiican oo Soomaalida xagoodii nabadgeliyo iyo isdhaxgal kan faqriga iyo kan taajirkaaba iyo kan siyaasigaba waxaan ugu talgalnay in hal meel la isku aftiraay waxaan kaloo qabanay isla maalinka maalmihii ku horeeyay waxaan qabanay ilaa 400 oo qoys yaan garoonka weyn ee kubadda cagta iskugu keenay kuwaas oo dad yar oo aan raashinkoodii aftirka ahaa aan u qaybinay barnaamij kale waxaan qabanay sidoo kale ah ciisi walaalka ururkan Taakulo waa urur samafal ah waa urur qaabka u taagan xaqiiqdii munaasabadan lagu casuumay inuu laga yeeray waxa jiro ururna la mid ah ayaguna aan imaanin laakiin waxaan ku hadlaynaa afka ururada kale ixtiraam iyo sharaf aynu idin helna darteed ayaan u nimid waxaan rajaynayaa ballanteennii ahayd inaan halkaan imaano waan ka soo baxnay xaqiiqatan Soomaalidu hal shay oo isku waafaqsan tahay meel walba ay joogtaa ayaa jirto taas oo ah qofka Soomaaliga inuu xaqiisa u dagaalamo idinkuna waxaan idin rajaynaynaa meel walba aad joogtaan inaad xaqiina u dagaalantaan annaguna waxaan nahay dhalinyartiinii qof walba oo annaga naga mid ah wuxuu idinka yimid idinka waxaan ugu jiro hooyooyinkan waxaan ugu jiro walaaladeen waxa idinka mid ah adeeradeen iyo abtiyadeen iyo awowyadeen aad baan idin jecelahay halgankuna ma aha wax shalay soo bilowday daraad weligii inta uu qof Soomaaliya jira halganka uu jiraya waxaan rabaa markaa inaan dhowr fariimood baa idin siiyo oo ay Taakulo idin leedahay waxaan idin leenahay walaalayaal halgankan dad badan baa soo rafaado oo soo dhibtooday carruur badan oo soo agoomay dad baa u hanti waayay inay idinka noqoto horta waxaan rabnaa insha Allah qadiyadaas oo aan hal meel iyo hunguri iyo waxyaabo la mid ah ku ekeen oo ah mid sii socon doonta hadduu Ilaahay yiraahdo
annagu haddii mid ka mida hablaheenna mid ka mida ay na matashaay ama ay guulaysatay ama meel ka mida ay xuquuqda aan leenahay ama idinku dhammaantiinna la leedihiin ay kaga matasho waxaan leenahay weyna matashaa gabadhaa yar waana u dhimanaynaa darteed taa macnaheedu waxay tahay macnaha inaan isku duubannahay dhammaanteen qof walboo naga mida runtii ma doonayo marka inaan ku sii fogaado walaalayaal waxaa sidoo kale halkan idinka salaamayo gudoomiyaha dalladda ay ku midoobaysan yihiin ururada dhan cabdiweli walaalayaal waxaa idin leenahay dhalinyarteena Taakulo idin salaamaysa halgankuna mar walba qayb baan ka nahay jiritaankiina iyo inaad hore u socotaana waa mid aan anagu ku taaganahay xuquuqda iyo xaqa aan u dagaalamayno ee dalkan maanta loo dagaalamayo ma jiri leen hadeedan idinku shalay u dagaalanteen sidaa darteed waxaan idin leenahay walaalayaal kan idinka tegay idinka carooday iyo kan idinla jooga iyo midka idin dhaliilsan ee idinka mid ahba waxaan idinka rajaynaynaa dhammaan inaad isku keentaan maadaama waxa loo diraraya ay tahay midnimada inaad sii raadisaan marka deegaanka qofka ugu sareeya ee talada guud haya iyo inanta xala dhalatay ee deegaankeenna ku dhalatay waa isku xuquuq hal shay ayayna matalaan dhammaanteedna waadna matashaan aad baad u mahadsantihiin ma doonayo walaalayaal inaan ku sii dheeraado waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa oogana mahadcelinayaa dhallinyaradan wariyayaasha is soo xilqaamay ayaguna iskaa wax qabso ku shaqeeya runtii hawshaan ballaaran noo haayo ayaguna waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin ururka Taakulana dee wuu idin furaya dhammaantiin dee labada dhinacba inaan iska wada soconno waa insha Allah wada soconno aad baa idin salaaminahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أوغادية. أوغادية. أمة الصومالية. ما شاء الله. إلهي من نمية توفيق نسيو. مركز روائد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين واند السلام يا مدحضة حبنها دلنيارضة دمان dadka shirka ka soo qayb galay xafladan waxaan leeyahay dhammaan ururka OYSU meel ay joogaan doorta marka hore hambaliyaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryaynaa sanado badan inaan u dabaaldegno inaga oo xor ah oo calan gobonimo harsanayna anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan hambaliyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed toddobaadka ummadda Soomaaliyeed anoo fursadan ka faa'iideysanaya maanta iyo shalay iyo 1 bisha Juulaay toddobaadkan markaan israacino waa toddobaadka ummadda Soomaaliyeed أنا مركز فرصة كفايدة سنة وحان تهنيات يا همبلية ودريا دمان ومدة صومالية ميلي شوغان أنا أقول همبليين يا maalintii qaranka ummadda Soomaaliyeed oo ahayd 26 Juun maanta oo ah maalintii qaranka Jabuuti oo xorriyadda qaatay 27 Juun iyo isla maanta oo ah maalinkii OYSU la aasaasay runtii waa maalin aad iyo aad u weyn waa toddobaad aad u qiimo badan waa toddobaad qulubta ummadda Soomaaliyeed mar kale soo nooleynaya waa toddobaad diila dhalinyarada Soomaaliyeed galiyay sidaa daraadeed waxaan leeyahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed hambaliyo dhalinyarada Soomaaliyeed si gaar ah ugu hambalyeynaya meel ay joogaanba sababtoo ah dhalinyaro ayaa wax aasaasan wax waliba ku ka aaskumaa dhalinyaranimo ka aasaasantaa noloshu dhammaanteen waan dhalanay inagoo ilmo yaryar dhalinyaranimo soo maray markaynu weynaanana dhalinyaraynu ku wareejin doonaa xilka sidaa daraadeed dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leeyahay ku dadaala inaad mustaqbalkiina idinku gudoomisaan oo aan cid kale idin go'aaminin ku dadaala inaad gacmaha qabsataan ku dadaala inaad jabisaan qoqobayaasha la idin kala sameeyay ee dadka idinka waaweynaa idin sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baan la hadlayaa inaad jabisaan qoqobaha la idin kala sameeyay oo aan qulubtiina la kala qoqobin ku dadaala ayaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba xad ma kala laha mid weeye walaalo weeye inay dhalinyaradu ka shaqeeyaan oo ay soo ceshadaan qaran Soomaaliyeed oo shan Soomaaliyeed oo awood leh mustaqbalka dhalinyarada hor yaala weeye waana ku gubaabinayaa inay soo ceshadaan inta markaan ka soo laabto dhalinyarada Soomaalida ogaadeenaya OYSU farxad bay ii tahay maanta inaan ana ogaadeenaya joogo oo jigjiga jooga xafladan ballaaran ka soo qayb galo
lagu mahadiyo rabbina waxaan ka baryayaa maalmo ka qurux badan oo ka waasacsan oo aan cidhiidhi dareemaynin oo calanaan kaas ahayn uuna ogaadeen iyo taagnayn inaynu dhammaanteen isugu nimaadnaan ilaahay ka baryayaa inta markaan ka gudbo dhalinyarada hawl culus baa u taala inta badan dhalinyarada Soomaalidu waxbay daba socdaan laakiin inay hal abuur yeeshaan baa hor yaala dhalinyaradu inay hal abuur yeeshaan oo mustaqbalkooda iyagu go'aamiyaan oo ummadooda khadka u jeexaan oo ay ka tanaasulaan kala qaybinta iyo meel fadhiga ayaan ku waaninayaa oo ku wacyigelinayaa gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ogaadeen ku nool meeshay doonayaan ka yimaadaan aad baan u dhaliilayaa aad iyo aad waxaan u jecelahay inay muujiyaan lahaanshaha shakhsigu inuu lahaansho muujiyo waxay ka qiimo badan tahay isagoo dhulkiisa jooga inuu u ekaado qof marti ah inaynan marti u ekaanin oo ay dhalinyaradu shaqooyinka waddankeena yaala ka shaqeeyaan inta badan markaad aragto waddankeena waxaa ka shaqeeya dhalinyaro kale oo aan Soomaali ahayn inay idinku ka shaqeysaan oo shaqadu heshaad male shaqo walba aad ka shaqeysaan oo aad isku dhiirigelisaan oo hal abuur yeelataan oo shaqo abuur idinku isu samaysaan oo isku xidhnaataan oo qabyaalada iyo kala qaybinta qarnigii qabyaalada waa laga soo tagay qabyaaladu marna qiimo ma lahayn laakiin markay Soomaalidu qabyaalada wax ku fali jirtay waxay ahayd waagay geela kala qaadi jirtay eega geela kala qaadaa ma hadhin waa la ilbaxay beeraley baa la noqday ilbax baa la noqday social media lagu dagaalamayaa qalin baa lagu dagaalamayaa xilligii qabyaaladu wuu dhacay iyadoo marna qabyaalada qiimo lahayn sidaa daraadeed dhalinyarada waxaan leeyahay qabyaaladu in ay wax gaadhsiisaa hadday jiri lahayd ummadda Soomaaliyeed ay gaadhsiin lahayd 60 sano ayaa loo dabaaldegayaa maanta waad aragtaan ummadda Soomaaliyeed meeshay taalo qaranka 60 sano loo dabaaldegayaa waa xusuus kaliya ma aha qaran Soomaaliyeed maanta ishaystaa runtii ma jiro inkastoo aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed inay ka soo qabsanayso xilliyadii ay ka soo dalkiisana u dambeeyay soo maray oo yiddiilo fiican ay muuqato haddana maadaama oo dadka Soomaaliyeed maanta nool dhalinyaro u badan yihiin dhalinyaradu waa inay ka baxaan khiyaaliga iyo waxyaabaha maalayacniga ee dibudhaca keena ee markaad aragto social media faa'iido fara badan baynu ka heli karnaa waayo maanta waxaa laga yaabaa hadda in caalamkoo dhan laga daawanayo waa aalad runtii adigoo halkan jooga aad wax badan ku gudbin karto laakiin sidii kale ayay Soomaalidu dhalinyaradeedu isticmaalayaan waxaad arkaysaa dagaal iyo buuq social media ka socda anoo fursada ka faa'iideysanaya dhalinyarada Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed abwaanada Soomaaliyeed meeshii siyaasiyiinta ayaa gasheen warqalweynta aad ku wadaan iska daaya oo ummadda tusaale fiican u noqda idinkoo ka faa'iideysanaya fursadda caafimaad fursadda isgaarsiineed fursadda nabadgelyo ee haysataan intaaba ilaahay way nagula xisaabtamayaa anuu hadalkayga soo qaabinaya waxaan dhalinyarada halkan iga hor fadhida iyo inta ay maqli doonta aan u dardaarmayaa marka ugu horreysa naftayda anoo ka bilaabaya cabsida ilaahay inaynu noqono dad akhlaaqda ka dhisan oo dhaqankooda ka dhisan oo sharaftooda ilaashada runtii waxaan aad ugu farxaa marar badan oo ku celcelin jiray anoo waddanka ka maqan markaad eegto dadka Soomaaliyeed iyo dadyoga kale la degan hadda matalan inaga sida Ethiopia oo kale dhaqanka Ethiopia inagama muuqdo markaynu hadda jigjiga joogno runtii waan ku farxaa ma arko gabdho Soomaaliyeed oo labiskii dadka kala qaba laakiin waxaan arkaa dad aan Soomaali ahayn oo labiskeena qaba marka waxyaalahaas oo kala arko waxaan gartaa inaynu weli noolahay dhaqankeeni nool yahay diinteeni nooshahay sii kordhiya ayaan leeyahay dadku inay wax wada qabsadaan oo nabadgelyo lagu wada joogo waa wax fiican laakiin lahaansho ummadda Soomaaliyeed lahaansho dhalinyarada Soomaaliyeed lahaansho mustaqbal wanaagsan baan idin rajaynayaa meelaha joogtaan mar kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambaliyo ururka OYSU waxaa la horay u socda meeshaad maanta gaadheen waa 11 sano wali caruur baa tihiin qaan gaadha weynaada soo barbaara salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh